السلام عليكم كسو دوادا دكتور مامو lectures maanta waxaan ka hadlaynaa dermisku waa lakabka labaad ee ku xiga epidermiska waana layerka ugu thicknesska weyn guud ahaan saddexda layer ee maqaarku ka kooban yahay thicknesskiisu waxaa lagu qiyaasaa 0.5 ilaa 3 millimeters dermisku wuxuu ka samaysan yahay connective tissue fibers gaar ahaan collagen iyo elastic fibers sidoo kale waxa halkan yaala waa dermiska blood capillaries nerve fibers aad u fara badan iyo structureska lagu magacaabo skin appendages skin appendageska lecture gaar ah ayaan kaga hadli doonaa sidaas daraadeed lecturekan waxaan diiradda ku saaraynaa qaab dhismeedka ama structurada sameeya dermiska waxaa loo sii kala qaybiyaa laba layer oo kala ah papillary layer iyo reticular layer haddii aan fiirino figurkan wuxuu noo muujinayaa labadii layer ee dermisku ka samaysnaa papillary layerku waa layerkan kore waa very thin layer marka dermiska thicknesskiisu 10 meelood loo dhigo hal ilaa iyo 2 meel kamid ayuu ka noqonayaa wuxuu ka samaysan yahay loose connective tissue fibers waa area noo muuqata halkan marka waxaa yaala numerous blood capillaries iyo nerve fibers kuwaasoo si indirect ah u quudinaya unugyada epidermiska maadaama epidermisku aan lahayn blood vessels aan lahayn reticular layerka waa qaybta ugu weyn ama ugu badan ee dermiska samaysa 80% ayuu ka yahay dermiska wuxuuna ka samaysan yahay dense connective tissue fibers structurada ama structureska uu ka samaysan yahay waxaa ka mid ah collagen fibers elastic fibers these cellskan unugyadan waxaa loo yaqaanaa fibroblast cells waa unugyada sameynaya these networks of collagen and elastic fibers unugyada sameynaya waay areadan waxaa ka buuxa waxaa loo yaqaano connective tissue matrix this area ama waxaa kaloo loo yaqaanaa ground substance loo yaqaanaa sidoo kale dermiska dhexdiisa waxaa yaala 3 nooc oo ka mid ah unugyada difaaca jirka selkan halkan yaalo waxa weeyaan waa macrophage wuxuu ka mid yahay immune cells uu ka mid yahay waxa waaye foreign bodies-ka jirka soo gala antigen-ka jirka soo galay wuxuu ku sameeyaa engulfing ama waxa loo yaqaano phagocytosis ku sameeyaa sidoo kale halkan waxaa yaala cell loo yaqaano antigen presenting cells ama waxa loo yaqaano dendritic cells ayagana waxa waaye shayga antigen-ka ah ama jirka aan ka mid ahayn marka ay dareemaan waxay u present gareeyaan qaybaha kala duwan ee immune systemka ay u present gareeyaan cellkan kale waxaa loo yaqaanaa mast cell this mast cell wuxuu leeyahay granuleskiisa waxaa ku jira marka waxa loo yaqaano histamine this histamines waxay kaalin muhiim ah ka qaataan inflammatory processka kaasoo asagana laftiisa ka mid ah innate immunity-ga jirka bani aadamka ka mid ah finally waxaa jira 2 types of projections kuwa ka imaanaya from epidermis soo aadaya dhanka dermiska iyo kuwa ka tagaya from dermis aadaya dhanka epidermiska aadaya
kuwa dermiska ka imaanayo waxaa loo yaqaanaa rete rigidus kuwa ka tagaayo dermiska epidermiska aadayan waxaa loo yaqaanaa dermal papilla haddii aan fiirino labadan structure-kan kore waxaa waaye waa epidermiska this projectioniskan soo taagtaagan waxaa loo yaqaanaa waa rete rigidus dermiska structure-ada ka soo baxayo ee kor aadayan waxaa loo yaqaanaa dermal papilla waa sababta layerkan loogu magacaabay papillary layer waxa weeyaan because of this projections oo loo yaqaano dermal papilla halkaas ayaan kusoo koobaynaa lecture-keena maanta